waayahay asalaamu calaykum kusoo dhawaada saaxiibayaal channelkan raacday academy magacaygu waa bashiir salebaan aadan waxaynu halkii kasii anba qaadaynaa casharadii taxanaha ahaa gaar ahaan qeybtii aan kaga hadlaynay sida loo qoro cutubka loo yaqaano literature reviewga marka maanta waxaan ka hadlaynaa qeybtii saddexaad intiinii la socotay inta ku cusub waxaan ka codsanayaa inay channelka saaraan subscribe si aad ula socoto casharada iyo magaranaysaay skilliska aan halkan soo marin doono si aan ugu kala faa'iidaysano aanad uga faa'iido ama aad share garayso si aad ugu faa'iidayso dadka kale ee magaranaysaay walaalaha ah ee u baahan in ay xirfadan iyo aqoontan helaan marka maanta waxaan ka hadlaynaa qayb yaroo kooban oo aan kusoo gunaanadayno literature reviewga oo runtii marka aad doonayso inaad qorto literature reviewga aad u baahan tahay inaad mar walba maskaxda ku hayso ee mar walbana maskaxdaada ka guuxayso basena ay u noqon doonto sida loo magaranaysaay qoro cutubkan saddexaad ee literature reviewga marka waxaad u baahan tahay skillskan inaad maskaxda ku hayso ama aad yeelato ka hor intaanad magaranaysaay qorin oo aad magaranaysaay ogaatooyaan waxyaabaha muhiimka ah ee markaa lagaa rabo markaad literature reviewga qorayso waxa weeyaan in aad leedahay wax la dhaho analysation ama aad awood u leedahay in aad taxliiliso waxyaabaha kala gedisan ee magaranaysaay researchyada kala gedisan aad markaad dhex gasho waa inaad awood u leedahay awooddii aad magaranaysaay ku taxliilin lahayd marka waxyaabaha aad uga baahan tahay most importantly waxa weeyaan inaad yacni dooran karto research area kamida aad dooran karto ama portion kamida ama qayb kamida aad dooran karto differentiation aad awood u leedahay inaad samayso breaking up aad yacni leedahay inaad samayso marka macnaheedu waxa weeyaan markaad research dhex galayso waa muhiim analysation marka waxaa laga yaabaa inaad researchna 20 page ka kooban gasho qaybo badan ka kooban waa inaad awood u leedahay inaad wax ka dooran karto inaad awood u leedahay inaad variableska ama conceptska kala duwan ee researcherku ka hadlayo aad differentiation ku samayn karto similarities aad kasii dhexayn karto iyaga aad sii kala tirin karto dabeetana dib isugu xirxiri karto marka waa very important inaad leedahay xirfadda analysationka marka la joogo literature review oo taa macnaheedu ay tahay yani inaad kala jajabiso dhaata dhan dabeetana aad qaybtii hore dib ugu xidho ama qayb cusub oo magaranaysa argument aad ka samayso analysationka marka laga yimaado xirfadda muhiimka waxa weeyaan inaad awood u leedahay synthesize wax la yani inaad abuuri karto wax cusub inaad markaad researchka dhex aqrido aad kala soo dhex bixi karto researcherkani yani argumentkan evidenceyada uu adeegsanaya markaad eegto inaad kala soo dhex bixi karto yani conceptska ideaha iyo wax theorieska kala duwan dabeetana aad ka dhexaysiin karto integration aad combination ka dhexayn karto formulation dabeetana aad samayn karto reorganizing si dabeetana aad u abuurto ee magaranaysaay conceptyo aad adigu leedahay oo aad magaranaysaay brainstorming maskax dhalaalin ama maskax magaranaysaay curin aad ku samaysay waa muhiim iyaduna markaa xirfadaas xirfadda kale ee very important waxa weeyaan comprehension qolihiina videogan daawanaya ee imtixaanayaashii hore la socday inta badan waxaan ka hadli jirnay mar walba inaad fahansan tahay the nature of your research marka waa muhiim comprehensionku macnaheedu waxa weeye inaad fahansan tahay waxaan aad horta wado mar walba waxaa si gaara markaan comprehensionka uu si gaara ula sii xidhiidhaa research kasta waa inaad horta fahantaa researcherkani maxay tahay objectiveska uu doonayay inuu inuu magaranaysaay cilmi baaris ka sameeyo maxay tahay methodologyga iyo designka uu isticmaalay maxay tahay theoryga hagaya ee ka dambeeya maxay tahay allahumma salli ala fad methodska uu adeegsaday ee gaargareeyay researchka dalka muxuu ka soo saaray marka waa very important inaad fahansan tahay marka waxaad inaad fahansan tahay ay kuu magaranaysaay kuwa kaa caawinaysaa inaad ku samayn karto distinguish variableska iyo areaha kala duwan inaad intaad u baahantahay la soo bixi karto waxaa kaloo very important inaad sarixi karto waxaan aad magaranaysaay kala soo baxday meesha oo aad ummadda akhrisanaya ama akhristayaasha hadhow akhrisan doona aad u sharaxi karto iyada oo
waxaan aad sharaxi doontaa aanay yihiin ay yihiin qaar wax ah complete ay yihiin oo markuu qofku akhriyo uu ku qanci karo ideyadan ama conceptiga meeshan aad ku qoraysaa inaanay ahayn half ee ay dhammaystiran tahay marka waxaa kuu saamaxaya taa inaad waxaanad literature reviewga waxaan hataa marka hore fahanto muhiimadda waxa weeyaan marka u dambaysa knowledge waa aqoontaas xaggee baad ka keenaysaa wax laga yaaba rajadii ku cusubin you have to read waa inaad akhridaa haraan uga soo hadlay qaabka loo akhriyo magaranaysaay artikalada ay dadka scholarska ahay qoraan meelaha laga akhriyo ee ugu muhiimsan aad markiiba doonaysa aad kala soo baxdo marka inaad aqoon u yeelataa waxaan markaad soo fahanto waxay ka caawinaysaa inaad define gareyn karto different conceptiga ku jira literature review inaad kala saari karto inaad classification ku samayn karto aad darajaad u kala samayn karto dabeetana aad abuuri karto your maxaa la dhahaayay idea iyo concept aad abuuri karto waxa muhiimka xirfadda muhiimka iyo very important waxa weeye asxaabay waliba aan aad ugu celinay very important waxa weeye waa waxa loo yaqaan paraphrase ama rephrase paraphrase ama rephrase waxay ka hortagtaa waxa la yiraahdo cheating ama si kale hadaan u dhigno plagiarism copy and paste ayay ka hortagtaa xaluta marka maxaad samaynaysaa marka xirfadaha aan soo sheegnay aad leedahay cilmi baaris kasta oo uu qof scholar yahay qoray markaad hesho waxa aad u baahan tahay aad ka hesho aad step sidaas oo soo mariso wax kasta oo aad ka soo qaadato ha noqoto one paragraph ha noqoto waa inaad ku samaysaa paragraph waa inaad paraphrasing ku samaysaa haddaad one paragraph ka soo qaadato waa muhiim inaad ku samayso paraphrase ama rephrase maxay tahay hadaba paraphrase ama rephrase paraphrase ama rephrase waxa weeyaan yacni tusaale ahaan oo kale leadkaas oo kale laga bilaabo select differentiate and break up ayaad ka soo qaadatay paper ka soo qaadatay waa inaad isticmaashaa erayo aad adigu leedahay adigoo aan ka guurin conceptkii ku qornaa paperka marka ereygii select waa bedeliya maxaad leedahay erey choose oo kale differentiate erey kale break up erey kale dabeetana paragraphkii ama sentenceadii ama sectionkii aad ka soo qaadatay paperka waxaad u isticmaashay erayo aad adigu leedahay dabeetana waxaad ku muujisay citationkii qoraaga leh waxay lagu qoray iyo pageka ay ku taalo kaasaa leedahay paraphrasing waxa weeyaan waa the process of using your own language haddana adigoo aan ka tegayn without leaving the original idea or original concept of the paper adigaan ka tegayn marka copy and paste isna dala wad markasta marka halkan marka la joogo inta badan literature review iyadoo oo magaranaysaa iyadoo la iska magaranaysaa hawl yaraysanayo ayuu qofkii wuxuu odhanayaa intanba ii soo koobiyey dabeetana uu dhigayaa kadibna citationkii uu raacaya taasi ma aha xalaal ma aha waa inaad saaxiib xalaalaysataa waxa aad meesha ku qorayso qodobka muhiimka ah ee mar walba waxaagan gaargaraynaya waxa weeyaan waa inaad critical thinking skills leedahay critical thinking skillsku absolutely intan sare ee aynu ka hadalnayba intan aynu meesha ka hadalnayba wuxuu bay noqonayaan waa critical thinking skills analyzation synthesize oo abuurid comprehension knowledge solving waa critical thinking marka waxa weeyaan markaad paper la soo degto waa inaad ugu dhex gashaa oo ku samaysaa critical thinking yacni si xeel dheer waa inaad u naqdisaa si xeel dheer waa inaad conceptiga ku sugan aad magaranaysaa u kala shaandhaysaa u taxliilisaa u falanqaysaa dabeetana aad ka soo saartaa wax magaranaysaayay macquula oo loojiga waa dadka ka soo abuurtaa oo dadku readersku uu ku qanci karo waa aanad waxaan kala tagtay karin oo habaysan waa inaad ka saartaa kolka critical thinking skillsku waa very important marka la joogo cilmi baarisyada iyo meelaha kala duwan nolosha gaar ahaan researchka marka la joogo waa very important skill weeye loo baahan yahay inaad yeelato markaad ku dhex jirto waayo aqoonta gebigeedaba waa inaad ku samaysaa critical reading waa inaad critical thinking markaad leedahay critical reading baad samayn hadhow deetana critical writing baad soo qori deetana waxaagii kordhiyey waxaa laga yaabaa insha allah in noqdo wax justifiable oo lagu qanci karo intaa marka laga yimaado waxaa kale oo muhiima stepskani waa very important markaad qorayso researchka any assessment kasta yani assessmentka waxaad ku samaynaysaa researchadan kala duwan ee aad akhriyayso waa inaad muujisaa research kastoo aad samaysaa strengthskiisa waa inaad muujisaa sidoo kale weaknesska ay researchkaas sameeyeen waa inaad ku muujisaa waad caddayn kartaa yacni theorieska kala duwan ee aad literature reviewga ku qorayso
ee aad ka soo xiganayso yacni cilmi baadhisyadan kala duwan ee dadka khubarada ahi qoreen waa inaad strengthskooda muujin kartaa weaknesskooda muujin kartaa taana waxaad ku ogaanaysaa adigoo analyzation sameeya adigoo waxaan comprehension sameeya adigoo deetana dhex gala oo critical thinking adeegsanaya si waxyaabaha aad u dhamayso waxaa very important ah mar walba inaad maskaxda ku haynaysaa waa inaad topiga fahansanto saaxiib haddii aanad topiga fahansanayn cidlaad gudaysaa cidla ayaad wallahi gudaysaa marka waxaa very important ah inaad fahansanto markaad soo xiganayso a citing of all key studies in the subject يعني markaad soo xiganaysa research baad heshay waa inaad soo xigataa all key studies ee laakiin xiriirka la leh subject territory يعني xuduudda aad wax ka qorayso scope-kaaga objectives-kaaga wuxuu xiriir la labaad la soo xiganaysaa marka meesha waxaad ka saaraysaa wixii aan xiriir la lahayn saa daraaddeed in research markaad akhrido qaybaha research-kaaga integrationka la leh relationka la leh relative-ka la leh baad soo qaadanaysaa kaasaad citation ku sugaysaa waxaa kaloo muhiima marka halkan la joogo ee maskaxda ku haynaysaa a clear indication of how the review links to your research question waa inaad halkan ku caddaysaa oo link weyn weliba uu jiraa weliba waa inuu jiraa link weyn markaad joogto literature review waa in akhristuhu markiiba uu ka dhex fahmayaa research questionkaagii ama hypothesis-kaagii iyo ma garanaysaa literature review aad soo xiganaysay iyo waxaanaad qoraysaa waa inuu xiriir ka dhexeeya yacni waa inay si toosa uga jawaabayaan amaba waa inay halkan jawaabay matalle waa inay si toosa u taageerayaan research questionkaaga ama hypothesis-kaaga waa inay si toosa u taageerayaan oo ay xiriir weyn ka dhexeeyaan lagana dhex arki karo lagana dhex fahmi karo kaas waa intaa qaybtan kale aan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan waa maxay baan isweydiinayna haddaba literature review-ga wanaagsani literature review-ga wanaagsani waa focusing muxuu focusing ku yahay specific weeye si kala hadeen muxuu haddaba specific ku yahay yacni waa specific topic specific hypothesis specific research mission oo macnaheedu waa narrow oo area gaara ayuu ka hadlayaa good literature review ma jiro literature review yacni ka hadla isaga kala gudba intaasoo shakshan taas waa wax kale laakiin literature review markaynu ka hadlayna cilmi ahaan iyo marka lagu dhex jiro iminka ma garanaysaa researchka iyo marka meelaha laga hadlayo waa muhiim inuu ahaado focusing issue waa inuu ahaado qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan waa inuu mar walba ahaadaa organized oo markaa macnaheedu waxa weeyaan waa inaan toobigyo kala duwan waa inaanay isku khaldanayn waxa muhiima saaxiib inaanay toobigyo kala duwan marka waxaa laga yaabaa adigoo halkan kaga hadlaaya yacni sectioniskan each paragraph si kala hadday noo dhigo waa inay ka hadlaysaa wax cusub marka waa inaanay isku dhex khaldanaanin yacni adigoo wax ka hadlaaya haddana waa inaad wax kale kusoo dhex taro marka waxaagu waa inuu yahay organized oo sidee loo organize garaynaya يعني each paragraph ama section kasta ama sentence kasta waa inay ka hadlayaan wax gaar ah dabeetana waa saa organize garaysaa waa inuu yahay logical qaab logical waa inaad qorto oo uu habaysan yahay waxyaabaha aad meesha ku qoraysaa waa inay yihiin complete this is very important complete maxay tahay yacni waxaanaad meesha ku qoraysaa waa idea and concepts conceptiga haddii aad ka tagto iyagaan dhammays ahayn dee waxaneed waxa weeyaan maad gaarin goolkii aad doonaysay ahayd inaad ka jawaabto su-aasha meeshan taala so that were very important marka halka maxay waxa weeyaan do not leave the history you are writing in the literature review half of it waa inaad markaa complete ka dhigta qodobka kale waxa weeyaan integrative waa inay isku xidhan yihiin waxani oo research questionkaagi si toos ay u xidhan yihiin literature review-gu waa inuu leeyahay introduction waa inuu leeyahay sectionskaasina waa inay si toosa u khuseeyaan your objectives marka chapterka koobaad waxaan kusoo sheegnay research amin objectives leeyahay waa in halkana ay ka hadlayaan objectiveskaaga taa macnaheedu waxa weeyaan markaad u samaysay introduction section kastaaba waa inay si toosa ugu xiran tahay objectiveskaaga sababtaa waxaad ka jawaabayso objectiveskaasi waa very important waayo markii aad joogto aad baad u mahadsantihiin wixii feedbacka igula wadaag comment sectionka fadlan